يوم الدونس سida ugu dhaqsaha badan ee wajigaaga u bedeli karaysid maaha cream maaha exercise wajigaaga waxaa maaha liin aad subaxii cabisid maaha wax allaaliyo waxaas ismalihi wax allaaliyo waxay tarayaan baa jira laakiin waxa caadiga ee caadi wajigaaga isbedel aad ka arkaysid weliba degdega waa laba shay kow baruurta inaad ka ridid haddii baruur wajigaaga saarantay inaad ka ridid maxaa uga jeedaa baruurna dad baa jira isku haysta inaanay baruur lahayn laakiin leh baruurta haddii aad ka saartid meesha waxay ku caawinaysaa inay wajigaagu soo saaro fiijaradii u gaarka ahaa markan kale goobun baad ka tahay laakiin markaad ka saartid meesha waxa kuu soo baxay cheekboneskii jawlinekii adugu wax walba oo adiga gaar kaa dhigaya oo ku siinaya wixii aad ku arkaysay tiktokeryada oo adugu dadkan meelaha aad ku aragtidee moodhalada dadkaasi body fatkoodu ee weliba lagu sheego quruxda dadkaasi body fatkoodu badankooda aad buu u yaryahay macnaheedu maaha kow iskaga sii oo isbaktiyo meesha ka wada saar fatkii jirkaaga ku wada jiro dhan maaha taas waxaa jirta heer aad ku gaaraysid foolxumo oo dadku koranaya waad baktiyaysa ay soomaalidoo dhan iska kaa odhanayaan haddii baruurta ay kaa dhacday ma garanaysaa waa baktiyaysa waa isbaktinaysa waa isdilaysa sideed ku wada allah mad waalantay way waxaa way yaqaanaan soomaalidu ma garanaysaa maaha laakiin macnaheedu dadkoo kale waad baktiyaysaa waxaad gaari karaysaa heer aad fool xun tahay nin ahaan markuu body fatkaagu ka hooseeyo 10% ilaa 12% inta ugu wanaagsanna waa 15 ilaa 12 inta u dhaxaysa weliba 10 ilaa 15 meelaha ayaa ugu wanaagsanaa dee wajigaagu ugu yahay markuu quruxda waxaan jeedaa markuu ugu wanaagsanaa ayaa ah intaa u dhaxaysa 15 ilaa 10 dumarkana waxaa u malaynaya ahayd 25 ilaa 20 ilaa 18 20 ilaa 30 ilaa 20 meelaha anugu 18 bay meelaha 18 ilaa 18 aduu haddaba haddii aad doonaysa inaad fool xumaan 10% waa ka hooseyn haddaad gabarteena 20% waa ka hooseyn just as simple haddaba sidee wejiga faadka ugu luminaysaa maaha exercise oo waxyaabahaasi kaama luminayaan wejigan waxaan saaran gudaha kaga jira meer gaara inaad target garaysaa wax jiraba horta maaha baruur kuma lumin karaysid inaad haddii gacmaha kaaga badan tahay gacmaha inaad exercise sameysid haddii naasaha kaaga badan tahay nin ahaan dee oo dee aad leedahay si anuguba lahaa ma ku goyn karaysid just oo push up iyo waxyaabaha kuma goyn karaysid sida ugu fudud aad ku goyn karaysid baruur weliba hal meel aad doonaysid inaad target garaysid waa inaad baruurta oo dhan wada jartaa jirka dadka qaar meel bay kaga badan tahay dadka qaarna meel bay kaga yar tahay dadka qaarna meelihii wanaagsanaa ay doonayeen ayay kaga badan tahay dadka qaarna meelaha aanay ku jirin ayaa waxaan arkay wallahi ma kaftamayo dad aad u buuran oo six pack leh oo xaggan aanay ka gelinba xitaa nasiib maan ahayn anna xilligaa fakinaasaa lahaa aduu siday noqotaba ilaahay wuxuu options buu ku siiyey marka saa u dhalatayba shax buu kuu dhigay shaxdaa kolba qof walbaba qofka kale wuxuu kaga wanaagsanyay siduu ugu ciyaaraya shaxda marka ilaahay taasuu ku siiyey haddii wejigay kaaga badan tahay haddii gacmaha kaaga badan tahay haddii meelun kaaga badan tahay ma jirto wax aad si gaara aad u target garayn karaysaa sida keliya tid ku lumin karaysaa waxa weeyaan waa inaad jirka oo dhan ka wada saartaa sidee jirka oo dhan lagu wada saaraa horta dhowr video aan ka sameeyey kaadhna xagga sare uu kasoo bixiyey taaban video aan ka sameeyey dad u baahantay horta waan kuu sheegay laakiin faahfaahin dheeraada waxaan ka sii galay dee videoyadaas waa kow cuntadaada aad u yara oo wax aad ha u cuni sida pig kan doofaarkan basaliga ee maraykan jooga sidiisa waxba ha cuni laakiin bidaadan baa tahay soo maaha ilaahay caqli ku dar waxaanaad afka gelinaysa u cun energy ahaan ha u cunin macaan ahaan u cun of course dee bidaadan ahaan waad u baahan tahay marmar magaalada laakiin
24 hour macnahan oo cunde iskaana dambe ya rab la xaqnimo weeyaan marka ko cuntada yare laba luge wallahi gym iyo waxa maaha like weji ma hayna gym gashin inay baruurta ka lumayso luge un halkaad bas ka raaci jirtay amba gaari ka raaci jirtay u bedel lug balwad bay ka noqonaysaa balan anaa ku qaaday of course ma joojin karay imka balwadahayga waxa kamid ah inaan lugeeyo okay ma joojin karay wallahi ga dacana like every single time aan guriga ka baxo way yartay haddaan digdigay mooyaan way yartay inaan wax gaadiida baraaco marka asal meenahan maskaxiyana way wanaagsan tahay wad burn garanaysa calories inaba aan caadi ahayn borotiina wad gubaysaa kuu saamaxaysa inaad jir ahaan iyo weji ahaanba aad hagaagtid shayga labaad ee kuu saamaxaya inuu wejigaagu degdeg isu bedelo waa wax culus qaad waxaan uga jeedaa wax culus qaad ma buwaalantay badalaayga waxyaaba culus ka qaadnaya taa uma jeedo waxun baa ku leeyahay haddii aad wax culus qaadid testosteronkaaga nin ahaan hormoonkii kugu jiray ee ninka kaa dhigayay ee kaa duwanaysiinayay dumarka ayaa kacaya hormoonkaas testosterone haddii uu kaco jawline-kaagu wuu raacaya jawline-kaagu weyneynaya jawline-ku iyo waxyaabahana waxa weeye calaamadaha testosteronka waa calaamadaha u saamaxaya qofku inuu arko inay kugu jirto wax la yidhaahdo testosterone marka haddii aad wax culus qaadid oo wax kugu saamaxaya inaad recover ku qabatid oo awood intee leeg kugu qaadanaya haddii aad samaysid testosteronkaagu kacaysa haddii testosteronkaagu kacdana jawline-kaagu nuu raacaya marka jawline-ka laakiin waxaa jirta hab kale oo aad lagu weyneeyo laakiin anugu ma sameeyo waxa weeyaan wax calaali muscles ba ku yaala muruqyo xaggan ku yaala oo sida muruqyada kaleba u kordha marka calaali wax caag baa jira ay iibiyaan dadka qaar haddii aad u baahan tahay afkaad gashanaysaa fuck no anugu ma gelinayo waxa afkay fuck no caag labada 12 man sayra anyway waxa keliyata ay ku saamaxay inay wejigaaga bedesho waa labadaas skinka kama hadlayo waxaan ka hadlayaa structure-ka wejigaaga dad badan baan arag bay wejigooda soo eegi wallahi I'm not fucking joking dad badan ayaa jira oo aan arag wejigooda soo eegi sidii u eegin exactly gidaar ka soo horeeyo isweydiinayna moodaladan sidii jawline iyo cheekbone iyo sidii waxyaabahan u leeleeyay maadka ee go'aan baa ka xiga kelmad yaroo ku dhameeyaan